daawadayla waa barnaamijkeennii tiigsiga fog barnaamijka tiigsiga fog iyo maanta labadaba hadba xilligii waqtigeedii tahay waxaad ku daawan doontaan xogo ballaaran iyo warar dhinaca sirdoonka oo aynu ku qaadaa dhigano islamarkaan aynu ku eegi doonno waxyaalihii ugu waaweynaa ee 4 sannadood ee ugu dambeeyey ee Kenya ku kacday ee khatarta lahaa waxaynu eegi doonnaa arrimo waaweyn oo in badan ka qarsoonaa dadka Soomaaliyeed oo horfadhi media xogo iyo cadeymo ay u heshay kuwaas oo ku saabsanaa arrimaha iyo damaca Kenya inuu ahaa mid ballaaran weerarka dhinaca diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay ku qaaday golayaasha ay tagtay Capital Midowga Afrika xaruntiisa Addis Ababa Brussels iyo dalka Mareykanka New York Brussels iyo Midowga Europe New York iyo dalka Mareykanka jaamacadda Carabta iyo Qaahira kulamadii yaabka lahaa iyo sidoo kale waxyaalaha ku xeernaa kulankii Abiy Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ee Nairobi iyo waliba arrimo kale sidoo kale waxaynu ogaa doonaa wadamada cadaadiska ugu faraha badan saaray madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisa ee doonayay badda Kenya in looga tanaasulo ama in la qaybiyo ceelasha iyo barwaaqada lagu tuhmayo dalkaasi Soomaaliya gaar ahaan goobtaasi waxaan kaloo fiirinaynaa arrimo waaweyn oo dhammaantood ah arrimo sirdoon diblomaasiyiin kala duwan iyo madax aynu ka helay inkastoo dawashana qiimaha leh dadka Soomaaliyeed ay wararka qaarkood telteelka ogyihiin aan marka u horeysa soo koob isla markaana aan dib u milicsano goorta Kenya ay bilowday damaceeda dhinaca badda ee soke waxa ay bilowday sanadkii 2009 kadib markii uu dhacay heshiiskii safgaradna Kenya waxa ay la gashay shirkado shisheeye oo reer Yurub ah waa shirkadda Eni la yiraahdo ee dalka Italiya iyo shirkadda Total ee dalka Faransiiska ayaa waxa ay la gashay heshiiskaas ay Kenya la gashay labada shirkadood waxay kaga qaadatay malaayiin dollar oo lacaga oo loo yaqaan xaqul qalin ama lacagta loo yaqaan markaasi lacagta bakshiishka ee marka ugu horeysa saxiixa taaso ay ku dul iibisay markaasi badda iyo waliba barwaaqada Soomaaliya Kenya qorshaheeda waxay ka bilowday in ay hesho dad Soomaaliyeed oo si xoogan uga shaqeeya gudaha maadaama markaasi aysan goboladaasi ka jirin maamul adag ama sidoo kale si kale marka loo dhigo ay marka laga reebo hogaamiye kooxeedyo halkaas ka jiray mooyaane aysan ka jirin dawlad duna aysan gaarsiinay kumeel gaarka waxaana dadkii ay markaasi ay bilowday in ay la shaqeysato kamid ahaa Professor Gandhi oo ay u sameysay maamulka loo jiray Azania waagaasi Kenya waxa isla markiiba sameysay 2,000 oo askari oo ciidanka Kenya lagu amray inay tababar xoogan siiyaan ciidamada loo bixiyay markaasi maamulka Azania ayadoo oo arintaasi martaba uu ka hor yimid wasiirkii gaashaandhigga ee Kenya Yusuf Haji oo maamulka Kibaki u sheegay inaysan sax ahayn in qorshayaal noocaas oo kala hadeerta laga fuliyo dal daris Yusuf Haji oo kamid ah odayaasha waaweyn ee Soomaaliyeed isla markaana dhawaan geeriyooday ee Pahaw naxariiste ayaa kamid ah dadkii qorshihii Gandhi sida weyn uga hortagay kadibna waxa ay markii dambe u digrogotay Kenya arintii Ahmed Madoobe iyo jabhadiisii kolkii dambana waxa ay ku soo dhaxdhumatay ciidamadaas iyadoo ciidankeedana dhax ka shatay ciidamada kale ee Kenya ay guusha ka gaadhay markii ay Ahmed Madoobe iyo ciidankiisa ku hubsatay inay gudaha Kismaayo tagaan waxa ay la timid qorshaha dhinaca dadaal xoogan oo ay ku bixisay in ciidankeedii gudaha Soomaaliya sida sharci darrada ku galay ay ka dhigto kuwa si sharci noqda khaladaadka waaweyn ee loo tiri karo ama loo meeri karo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd inay ogolaadeen in ciidanka Kenya lagu daraamisan qorshahaas wuxuu ahaa mid ay Soomaaliya diidi kareysay isla markaana ay ganafka ku dhufa kareysay waxaana la sheegay in arintaasi ay si kasta ku timid ba ay ka hoos baxsatay dabadna ay galeen inkastoo madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed uu si weyn uga soo horjeeday joogitaanka Kenya una ka sheegay degmada Daynil ee gobolka Banaadir asagoo halkaasi hawlgal halkaasi ka soconayay ka hadlayay inaysan Soomaaliya waxba ka ogeyn haddana waxaa la sheegay in xafiiska ra'iisul wasaarihiisa arintaasi ay hoosta kala wadeen maamulka Kenya markii damase waxaa la sheegay in dawladda dalka Soomaaliya gaar ahaan markii kumeel gaadhnimada laga baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud talada qabsaday arintaas uu soo hortaagay karayay isagoo si fudud u oran karayay maadaama Kenya ay sida marka hore wadanka ku soo gashay sharci daraaid in hadeerta aan la soo dhaweynaynin Kenya wixii intaas ka dambeeyay waxa ay doonaysay in arinta badda la sii wado 2016 ayay Kenya si rasmi ah waxay u bilowday arrimaha waaweyn ee taageerada xoogan waxaana ay markaas ka fikirtay in ay mahuraan tahay inay geysato ruux ay si weyn u taageersan tahay oo daraheeda furi kara wararku waxa ay horfadhi media ku ogaatay in ra'iisul wasaarihii xilligaas Umar Cabdirashiid oo isaguna musharaxa ay door biday inay taageerto halka Ethiopia ay taageersanad Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynihiisii ahaa labada dal oo markaasi dalka Ethiopia waxa ka talinayay maamulkii TPLF
iyadoo maamulka Kukuyada ee isaguna ka taliya dalka Kenya ay isku afjaaqsadeen inay ka wada hadlaan labada musharax ay kala wataan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa horfan media waxay ogaatay inuu kulan qarsoodi la yeeshay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo u sheegay in uu ka daayo taageerada ay siinayaan Umar Cabdirashiid bedelkana ay wada taageeraan Xasan Sheikh Maxamuud iyadoo Xasan Sheikh Maxamuudna hadii ay Ethiopia tahay damaanad qaadayso inuu maxkamadda ka soo celiyo go'aanka dhinaca dacwadda ee dhageysigeeda si kastaba ha noqotee warkaasi waa la isku afjaaqsaday isla markaana waxaa la sheegay inay Kenya yareysay taageeradii lixaad ka lahayd iyo lacag qoonda ahayd oo la sii kareeyay mudane Umar Cabdirashiid haddaba horfar media waxay kala ogaatay ama wararka intaynu dabagalka iyo xogahan aynu ku jirnay isla markaana aynu la xiriirnay rag waaweyn odayaal iyo waliba dad diblomaasiyiin oo arrimaha taaka ula socday qaarkood ay kala joogaan dalalka Kenya iyo waliba Soomaaliya iyo goobo kale waxaa kaloo la cadeeyay in arinta kiiska badda ay waji kala yeelatay markii doorashadii sidii loo asteeyay in qowdi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la doortay waxaana markuu 45 maalmood uu casuumnaa uu Kenya ka helay casuumaad rasmi ah nooca loo yaqaan markaas casuumaad heer qaran ee si markaas ama state visit waxa loo yaqaan afka qalaad waa casuumadaha madaxda ay tagaan markii uu tagay magaalada Nairobi waxa loo soo dhaweeyay si heersana 23 bishii Maarso 2017 ayuu ka degay magaalada Nairobi Mr Farmaajo isla markaana waxa si weyn u soo dhaweeyay dawladda dalka Kenya iyadoo madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ka hortagay waxa loo riday 22 madfac sidoo kale galbis ayaa loo sameeyay wararka waxay sheegayaan in dalabyadii uu sitay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu sareeyeen ama xagga sare ay kaga jireen arinta rafaadintii dadka Soomaaliyeed lagu hayay ee markay socdaalka ka sameynayaan dalka Soomaaliya ee lagu bahdili jiray wajeer isaguna hadda ka hor uu si ula kaca u maray si uu u arko ilhaanada dadka Soomaaliyeed lagu hayay xilliga uu ra'iisul wasaaraha 2010 isla markaana 7 sano kadib isagoo xukunka dalka ku soo noqday uu arkay inaysan waxba isbedelin laga aqbalay waxa kale oo ay wararku sheegayaan in arrimaha kale ee markaas laga aqbalay ay kamid ahayd in dawladda dalka Kenya ay fududeyso isla markaana ay xushmayso dadka musharafiinta ah ee dawladda Soomaaliya ka tirsan musharafiinta waxaan ka wadnaa dadka qaranka Soomaaliya matala sida xildhibaanada diblomaasiyiinta xubnaha kale ee dawladda ee baasaboorada gudgududan iyo ka markaasi labada baasaboor ee gudgududan ee midna aad u gududan yahay midna uu cawlan yahay brownka yahay wata waa baasaboorka adeega dadweyne adeega service loo yaqaano iyo baasaboorka diblomaasiga la xushmeeyo lana soo dhaweeyo taasoo Kenya sidoo kale ay ogolaatay sidoo kale waxaa jiray in Kenya ogolaatay oo si weyn u soo dhaweysay in ay aqbashay mabda ahaan in ganacsiga labada dal la furo maadaama Kenya ay qaadka ama chaadka maandooriyaha la yiraahdo ay dalka Soomaaliya geyso in bedelka ayadana ay qaadato arrimaha kale horfadhi media waxay kala ogaatay in aysan haba yaraatee aysan jirin wax ka baxsan maalintaas oo aan ahayn badda inay Kenya ay ka hadlin waxaana markiiba ay doonaysay inay midrooriso madaxweyne Farmaajo oo 45 maalmood magacawnaa waxayna durbo soo qadintay damaceeda ku saabsanaa in la soo celiyo arinta maxkamadda ama warka in la qaraabeeyo iyadoo sidoo kalena hadallo waaweyn halkaas ay ka dhaheen madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fuudi la socotay gobjooga waxay horfar media u xaqiijiyeen inuu maalintaasi u sheegay Uhuru Kenyatta in arintu aysan ahayn mid hadeerto miiskan Nairobi taala ayna tahay mid taala miis ku yaala magaalada The Hague ee dalka Netherlands maxkamad ku taala iyo dhismo laakiin waxa kale oo arintaas horfar media loo xaqiijiyay in qodobka markii laga hadliyay uu madaxweyne Farmaajo sidoo kale uu sheegay inaysan mowduuca iyo ajandayaasha ku jirin haddaba arintu ismaysan taagin inkasta oo ay Kenya markii la gaaray bartamihii sanadka 2017 Kenya mashquul weyn oo dhinaca siyaasadda ayaa ka dhacay laba madaxweyne ayaa la dhaariyay Uhuru Kenyatta wuxuu ku dhawaaqay ama guddiga doorashooyinka ugu dhawaaqeen inuu guuleystay halka ra'iisul wasaarihii mar dalkaasi ninkii ka noqon jiray dawladda wadaagga ahayd dhika la yiraahdo Raila Amolo Odinga asaguna uu beerta xorriyadda dalkaasi isu dhaariyay oo sheegay inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya muddada intii ka dambeysay kulankaasi Nairobi ee bishii Maarso ama bishan oo kale 2017 waxa ay Soomaaliya markaasi gashay heer nasniina oo ay ka nasatay dacwadii faraha badneed iyo galaangalkii ay Kenya sameysay hase yeeshee
sanadkii 2018 ayaa Uhuru Kenyatta uu ekaa inuu soo xasiliyay arrimihiisa siyaasadda gudaha waxa uu asagoo carcar leh uu dib ugu soo noqday kaalmaha dhinaca dagaalka ee diblomaasiyadda 2018 ayaana waxa uu tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia wuxuuna halkaasi kula kulmay ama kulan duceed halkaasi ka dhacay iyadoo la joogay shirkii ururka midowga Afrika uu halkaasi u sheegay inuu halkaasi uga qayb galay uu ku sugay madaxweyne Farmaajo oo isaguna markaasi halkaasi kulamo ku lahaa wuxuuna codsaday in isaga iyo Farmaajo la kala gaaro oo la kala dhaxgalo mar kale ayuu Farmaajo isla codsigii soo hordhigay wuxuuna sheegay in la oofiyo wuxuu ku tilmaamay ballamihii hore ee afka ahaa ee Xasan Sheekh Maxamuud ka qaaday kuwaasoo uusan wax cadayma u keenin madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuuna Farmaajo u sheegay in uu si mahuraana ay u tahay dawladda dalka Kenya mutacajil u tahay si xoogan ay ugu daran tahay in la soo celiyo qadiyadaasi arintaas goobjoogayaal goobta fadhiyay waxay horfar media u xaqiijiyeen in ayadana lagu kala boodayay markaana Farmaajo uu diiday si kastaba ha noqoto arintu waxa ay yeelatay waji kale isla markaana way xumaatay waxayna ka sii dartay kadib markii bishii February 7deedii uu ka dhacay shir magaalada London 2019 shirkaas ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay ku soo bandhigtay ama ay halkaasi kaga dhawaaqday in ay doonayso in ay hilaadiso ama ay shirkadaha ku casuunto suurtagalnimada barwaaqo dhinaca shidaalka iyo macdan ku duugan badda Soomaaliya kadibna waxay furtay inay shirkaduhu ay ka qayb galaan oo dhageystaan bandhigii London bandhiga London bishii February wuxuu dhacay 7deedii 8deedina uu soo xidhmay kadibna Kenya waxa ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya bad ay leedahay iibsatay ama ay suuq geysay ama se ay xaraashtay isla markaana waxa sidoo kale arintaasi ay noqotay mid ay si xoogan loo bumbuuniyay Kenya waxay u yeeratay safiirkeedii arintuna way xumaatay kadibna waxa maalmo kadib uu diray wasiirkiisii arrimaha dibadda gabadha la yiraahdo Monica Choma taasoo uu u kala diray wadamada caalamka ugu tutudharoon gaar ahaan midowga Yurub New York Geneva iyo sidoo kale qaar kamid ah dalalka Carbeed isaguna wuxuu tagay gobolada qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika isagoo sidoo kale geeyay dacwad aad u weyn golaha midowga nabadgelyada ee Afrika wuxuuna sheegay in ay dawladda dalka Kenya isku diyaarinayso dagaal military oo buuxa oo ay ku qaado Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ku soo xadgudubtay badeedina ay ku gaday magaalada London ee dalka Britain inkastoo sheekada gaditaanka iyo xaraashka markii horeba ay ahayd sheeko Soomaali ka soo bilaabatay haddana Kenya waxa ay ka faa'iideysatay waxyaalaha qaarkood ee markaas la qorayay waxayna sheegtay in badda la gaday qayb ay leedahay marka arintu halkaas taagan tahay isla markaana Kenya waxa ay sheegtay inay si xoogan ugu diyaarsan tahay dagaal waxaana marka maalmo kadib ka furmay halkaas shirkii isaguna qaaradda Afrika ee madaxda qaaradda Afrika isku imaanayeen iyadoo halkaas ay kulamo duceedo ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mr Abiy Ahmed ayaa waxa uu u sheegay in nuxurka waraaqaha iyo handadaadda ee Kenya halkaas la timid iyo wax ogeysiis oo ah inay Kenya colaad horinayso waxa kale oo dabashana qiimaha la jira in dawladaha Kenya iyo Ethiopia ay leeyihiin heshiis difaac oo qarsoodi ah kaasoo ah in ay iska difaacaan Soomaaliya heshiiskan inkastoo la saxeexay 40 sanadood ka badan ka hor haddana waxa la sheegay in xilligii maamulkii TPLF ee ugu dambeeyay ee Haile Mariam Desalegn iyo Uhuru Kenyatta ay cusboonaysiiyeen xilligii doorashada ee Soomaaliya ka dhacaysay isla markaana ay sheegeen in Soomaaliya maadaama dawlad iyo ay ka soo socoto hadeertana dawlad la aqoonsan yahay ay xilka baneynayso haddii la doorto madaxweyne mar labaad dawlad ku meel gaar ah ka soo baxday loo dooranayo Xasan Sheekh Maxamuud haddii madaxweyne cusub loo doortana ay ka sii darayso horumarkeedu in dib loo cusboonaysiiyo si qarsoodi ayaa mar labaad loo cusboonaysiiyay waxaana la sheegay in labada baarlamaan la mariyay kiisaskaas oo ahaa kiisas sir ah looguna talagalay difaaca labada dal ay wada difaacanayaan iska kaashanayaan kaliya ugu weyneed Soomaaliya taas iyadoo ay ka duulayaan diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu soo jeediyay in isaga iyo Abiy Ahmed ay isku raacaan Nairobi taasi waxa ay dhalisay kala shakiga ugu weynaa ee Kenya iyo Ethiopia soo dhaxgala horfar video waxay ogaatay in ujeedka ugu weyn Farmaajo arintaasi uu kala haayay marka oo horeysa inay horta kala shakiyaan Uhuru iyo Abiy Ahmed oo aysan iska wada raacin maadaama arintu ay dagaal iyo gacan ka hadal ay marayso marka labaadna in uu Abiy Ahmed uu goobjoog ka ahaado hadii qofka gardaran iyo cidda gardaran isla markaana dhinacii hadhowta Soomaaliya la tuuteelaha dhinac siyaasadeed dhinac military uu oday dhaxdhaxaada uu masalo
Abiy Ahmed taasi waxa la sheegay inay ugu hirgashay isla markaana siyaasaddaas ay meel mar u noqotay farmaajo imaashahoodii inkastoo dadka qaarkood ay si kale u arkeen waxay ahayd ayaa la yiri mid lagu caabinayay in Kenya ay dagaal gasho iyadoo Soomaaliya aysan diyaarsanayn taasi waxa dhinac socday ayaa la yiri dib u dhisitaanka xooggan ee ciidamada Soomaaliya ee farmaajo uu ku jiray dabadeedna markii kulanka uu ka dhacay magaalada Nairobi xarunta State House waxa uu Abiy Ahmed halkaasi ka sheegay in waxa kaliya ay u aqbalayaan ama Ethiopia maanta ay aqbalaysaa ay tahay Soomaaliya oo nabad ku soo noqota iyo Kenya iyo Soomaaliya oo laba dal oo daris si dhinac yaala ay yihiin sidoo kale waxa uu Abiy Ahmed meesha ka saaray in uusan isagu ka hadli doonin arinta dacwadda badda ee labada nin u dhaxaysa wuxuu yiri arintaas waa arin labadiina idin khusaysa idinku ka wada hadla sida uu ii sheegay qof goob jooga ah oo horfadhi media khadka telefoonka kula hadashay inta markuu yirina waxay ridda ka digay oo iska tagay Abiy Ahmed oo ku noqday hotelkii uu deganaa dabeedna waxa isku soo haray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa la sheegay in Uhuru Kenyatta uu sheegay markiiba in qayb kamid ah badooda la iibiyay London la geeyay ama lagu soo bandhigay madaxweyne Farmaajo ayaa ugu celceliyay in Soomaaliya ay mar walba Kenya ka naawiliso saaxiibtinimo iyo nabadgelyo sida daraadeedna arinta baddu ay tahay arin masiiri ah ummadda Soomaaliyeedna aysan gargortan ka gali karin isaguna dawladdiisu ay ku dhaaratay ilaalinta badda iyo bariga Soomaaliya wararka dadka goobjooga horfadhiya ama saraakiisha goobjooga iyo diblomaasiyiinta horfadhi media barnaamijka tigsiga fogeeyo sheegan waxa kale oo kamid ah in istiraatiijiyadii dhinaca socdaalka iyo fariinta cad ee ku saabsaneed in Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin duulaanka Soomaaliya maadaama Kenya iyo Ethiopia ay heshiiska difaaca hore qarsoodiga lahaayeen kaasoo marduman la cusboonaysiiyay waxa muuqatay in dareen aad uga duwan kii hore Uhuru Kenyatta ku dhashay dadka qaar oo markaasi goobta ku sugnaa waxay u fahmeen hadallada ka soo baxayay Uhuru Kenyatta in ay marka qaarkood ku jireen waxa isku dhigtay hogaamiyaha geeska Afrika isla markaana haatan waxa u egtay in saaxiibadii qadiimiga ahaa ee Kenya xataa ay gacantaada galeen taasoo ahayd hadallo loo qaatay Farmaajo calaacal balse uusan sidaas ugu jawaabin markay jawaabtahayd wuxuuna Farmaajo si degan oo qabab ugu sheegay ayaa leeyahay iyadoo goobta la fadhiyo in badda Soomaaliya aysan ahayn mid miiska Nairobi taala mar kale isagoo xasuusinaya sheekadii hadda ka hor Addis Ababa uu ka yiri si kastaba ha noqotee maalmahaas iyo intii ka horeysay waxa dhinac socday cadaadis aad u xoogan Miss Juma waxay ka soo noqotay qaaradda Yurub waxa ku soo dhacay fariimo dhinaca diblomaasiyadda madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo wararku waxay sheegayaan in qaarkood ay ka imaanayeen ururka midowga Yurub ee EU una sheegayeen in ay Kenya tahay dal horumaray Kenya waa dal horumaray ayaa fariimaha qaarkood lagu soo qoray isla markaana waxa ay haddaba dhoofi karaan shidaalka waxa ay tumbooyin iyo agabkii dhinaca kaabayaasha dhaqaale ee loogu talagalay hirgelinta arrimahan ay ka taagan laam waxay haystaan dadkii aqoonta u lahayd dhinaca geology iyo soo saarista shidaalka idinku waxaa tihiin dal faqiir sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin dhinaca argagixisada iyo al-shabaab sida daraadeed kala qaybsada oo lacagta qayb qaata marka shidaalka la soo qaado dadkiina ku nafaqaysta waxyaalaha kale ee cajiibka horfadhi media ay ogaatay waxa weeye fariimo ka yimid bangiga adduunka oo dalalka khilaafaadkooda dhaxgala mararka qaarkood gaar ahaan marka ay timaado arrimaha la xiriira dhinaca qaninimada iyo khayraadka tusaale ahaan hadda waxay ku dhex jiraan dalalka Masar iyo Ethiopia oo ay kala hadlayaan arinta biyaha ayaa kamid ahaa hay'adaha waaweyn ee dunida ee arinta ku soo biiray waxayna codsadeen in hadii ay ogolaadaan heshiiska Soomaaliya in bangiga adduunku uu sii doono dhaqaale siina u lixaadle Soomaaliya sidoo kalena looga soo qaadi doono qor ku filan ceelasha shidaalka kismaayaduleedkeeda ee Kenya damacinaso EU ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ayagu dhinaca arrimaha qaarkood ay dhexdhexaad ka yihiin balse arrimaha qaarkood aysan dhexdhexaad ka ahayn waxay sheegeen in arrimaha ay dhexdhexaadka aysan ka ahayn ay tahay hadii meesha dagaal ka dhaco ayagoo sheegay in ay cidda eedala ay sii doonaan ama gacan ka hadalka marka hore bilowda balse waxay sheegeen in arrinta badda oo kale ay tahay Soomaaliya inay warka qaraabayso waxa kale oo horfadhi media ogaatay in qaramada midoobay ay soo dirtay waraaqo gaar ahaan New York laga soo diray kuwaas oo madaxweynaha Farmaajo si toos ah loo soo abaaray wararka kale horfadhi media cadaysay waxa kamid ah in mar walba la bartilmaameedsanayay madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo oo asaga cadaadiska ugu faraha badan la saarayay loona arkayay qofka mayalka adag ee ka foqila qatiyad waxa kale oo la sheegay oo xaqiiqa in qaramada midoobay ay sheegtay ama halkaas ka cadaysay in ay siinayso talooyin dhinaca aqoonta Soomaalida maadaama ay dawladnimada ka daaheen warqadaha mid kamid ah waxa lagu qoray sida ay goobjoogayaashu iyo xaqiijiyeen in lagu yiri
dowladaha adduunka oo dhan arrimaha intiisan maxkamadda gaadhin way ka wada hadlaan waxaana loo saaraa guddiyo waxayna u geystaan dalal ay ku kalsoon yihiin oo dhexdhexaadiya maad arrinta geysataan dalal kale iyo garar kale gelisaan taasina waxaa la sheegay inay mar kale warqad jawaaba ay direen maamulka madaxweyne Farmaajo una sheegay inaysan macquul ahayn markii inta badan arrimaha ay ka soo xidhmeen dhinaca wadamadaasi laga soo bilaabo iga AU oo African Union EU oo European Union UN United Nations Mareykanka iyo meelo kale waxaa la sheegay in ay gaadhay arintu in ergeyga Mareykanka ee u jooga Kenya uu tagay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay markii uu yimid xalane fariin loo soo diray madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo ayaa lagu yiri waxaanu idin haynaa waxaan ku sidaa fariin khaas ah oo ka timid Mareykanka sida daraadeed aynu kulanno wararku waxay sheegayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ogaaday qisada ninkaasi oo in badan gobolka ka shaqeynayay kuna dhaxmilna ayaa leeyahay arrimaha sharciga sida daraadeedna madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu diiday kulankiisa isagoo sheegay in wixii fariinay dawladda Mareykanku ay u wado safiir u joogo dalka Soomaaliya isla markaana uu yahay qofka ay arrinta kala xiriirayaan arrimaha kale warfad media ay ogaatay waxa kamid ah in markii intaas oo arrimood isku soo dhamaatay Kenya ay dulmaasiyadeeda balaadhisay Kenya mar walba waxay dirisay fariimo aad u waaweyn waxay tagtay saan idin sheegayba midowga Yurub midowga Afrika qaramada midoobay jaamacadda carabtana meedeyn jaamacadda carabta ayaa waxaa tagay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta isagoo tagay xarunteeda Qaahira wuxuuna kulan gaar ah oo khaas ah la yeeshay madaxweynaha dalka Masar General Abdulfatah al-Sisi oo markaasi noqon rabay sanadkii 2019 ahaa gudoomiyaha midowga Afrika sidoo kalena xubin adag uu ka yahay dalkiisa mar walba qaramada carbeed ee midoobay ee loo yaqaano Arab League waxaa la sheegay in uu ka bariyay isla markaana u soo bandhigay in ayaga iyo Kenya la kala gaaro ayaga iyo Soomaaliya la kala gaaro Kenyana ay ka xanaaqsan tahay waxa Soomaaliya sameynayso ugu dambeyntii bishii September 27keedii ayaa la isugu yimid magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay halkaas oo markaasi uu khudbad ka soo jeediyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isla markaana uu ka daba jeediyay khudbad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in markii la isugu yimid hotelka ay madaxdu deganeed gaar ahaan madaxweynaha dalka Masar General Abdulfatah al-Sisi inuu Abdulfatah al-Sisi uu dalbaday inay heshiiyaan laakiinse al-Sisi ayaan yeerin 100% sidii ay doonaysay Kenya waxayna wararku sheegayaan in uu si guud u sheegay inay arrinta ka wada hadlaan balse madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka sheekeeyay qadiyada badda in aysan ahayn mid sidaas u fudud oo afka loogu tiri karo ugu dambeyntii daawasha qiimaha leh dhammaan xogahan Horfadh Media waxa ay ka heshay goob joogayaal goobta fadhiyay ma jiro hal xog oo aanan qof goob jooga ah intaas oo goobood aan ka helin wararku waxa ay ugu dambeyntii hadarta ay ku dameeyaan ama ay u muuqdaan in cadaadiskii Kenya ay waday uu sii batay sayga haweeneyda la yiraahdo Miss Choma wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee Kenya Peter Kwanchi ayaa waxa uu hadeerto ama saacadihii ugu dambeeyay Afrika saac ugu dambeeyay uu ku baaqayay in la joogo maalmihii la bedeli lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in Kenya haddana mar kale ay u cugantay dagaal culus oo ay ku qaado madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisa Soomaaliya daawadayaal intaas ayaan ku joojinayaa waxaan rajaynayaa idinku inaad labada lambar aad kaga soo qayb qaadataan barnaamijka waa sida aad u aragtaan arrimahan iyo xogahan ma kula tahay Kenya inay intaas ku hadhay oo ay intaas arrinteeda ku joojinayso maxaa hadeerta Soomaaliya la gudboon sideese dadka Soomaaliyeed ay arrintan midnimada u sii xoojin karaan iyadoo laga yaabo in khatar u hadeerto u nibir weeyeen amaanaan